هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرير ما كجرة عدكيغا ما مقشان قرير هدو كجرة ولا على يسو شيغ شالت قرير بايغا قالي قرير ما كجرة قرير ما كجرة عدكيغا قرير ما كجرة قولي قرير ما كجرة مين مقشان هلو قرير ما كجرو قرير ما كجرو ولي عدكيغا اوكي ثانك يو سيستر ثانك يو ولاalo ثانك يو ما هدسنتahay عادي وما ثانك يو ما هدسنtahay soo dhawaada Soomaaliya soo dhawaada meel kasta aad joogtaan soo dhawaada walaalayaal soo dhawaada maanta arrimo badan oo xasaasi ah ka wada hadlaynaa arrintii asmaraan ka hadlaynaa soo dhawaada iyo waxa laga damacsan yahay dalkeena Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed soo dhawaada okay waa maho soo dhawaada marka soo dhawaada سيلا يهاي ملا فيعنو وان كا قاداي كلغين كسو دوادا ما مقليسان هيسكان ما مقشان اسكان ما مقشان اوكي ما هو ها اوكي ثانك يو ولاalo ثانك يو هذا كسيدته هدمان ايه وانا نسيته لا هذا كسيدته هدمان ايه تيدتو يدا لاسن مايه محالو رين نفتادي تتو يدا لاسن مايه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لورين نفتادي حالو رين نفتادي موجو محمد موجو محل نفتادي لوري خير الدوفلو محل نفتادي لوري وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كسو دوادا سومالي رنت ما تشعل رن شيك وعيب شيك لا لا حالو رين نفتادي لا 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 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حالو رين نفتادي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله نبا مالين لدى يولا بدي ولا لها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الله سودو واديك كليته لا حد كسيدته نالسر للمن هي محمدو تتو يدا لا سنمايه محالوري نفتادي محالوري نفتادي كاتوري رتريا يدا وي لك ديدي سودو
maxaa luray naftaade maxaa kaa tuuray eritrea maxaa eritrea kaa tuuray maxaa laftaada luray okay maho lakiyay gariir maa ku jiro saaxib laki gariir maa ku jiro gariir maa ku jiro walaalo gariir maa ku jira gariir maa ku jira ii sheega soomaaliyey gariir maa ku jira codkayga shalay gariiraa ku jiray waan ka diliid gareeyey gariir maa ku jira okay thank you walaalo ii sheeg gariir hadduu galo codkayga laki gariir maa ku jiro okay waa thank you leexadu ku sidate tayda tuunyada laasan maaye maxaa luray naftaade tayda tuunyada laasan maaye maxaa luray naftaade السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والدي السلامي أخيارتي إذا شرفت لكلجين مركز تاجوكتا وحن ليا كسو دوادا ما أنت رم بدن وحساسيا كوضع هاللينا سوماليا مركز تاجوكتان وركيجا نسفي عنو لوحة نجاهنا وفرع بركيانا وحنا قد حي على كابلوجا وشنت حدقله يا سومالي نمدا يدين تيلو قدا يحيالك يهلك وحكستو أن اسكو داغنو أما نقد حيا مركا كسو دوادا waxa weeye Soomaaliya ay arrin degdeg ah idin sheegaya arrin degdeg ah hadii la soo kulantay oo hadda ay soo gaartay baan rabaa inaan shacabkayga Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan siiba shacabka jooga Banaadir State magaalada madaxda Muqdisho labada nin canda wadaagta ay ka wada dhoofeen ninna Eritrea looga yeeray ninna maxay ahayd Puntland ka degay soo dhawow Zamzam soo dhawow Zamzam waxaan rabaa arrintii Eritrea horta inaan faala qaado وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن هذا رسوله إن أرنتي إرتريا عن رواينا كبلابو محمد فرماجي جروب كي إسراعي هرت وحندين شيء يا سومالي أنو سومالي بانو نهاي لكن نوالين نهاي دين نوالين نهاي دولة مال وحنهين مدح بنان وحنورت يدين شيء هيا دولة ديني يعلن كيني يدل كيني بإنان مانتا عاد دربانك أتنتين من دلكي يددكي با ديبه هيا ama iibsanahaya ee fariisa kala xadahaya ee tuuga ee been iyo mudadabnimo iyo maxay ahaayeen khaainimo iyo aanan aqoonin qof aan dhaar aqoonin qof aan diin ilaahay aqoonin qof aan ilaahay ka baqan in aan wadani ahayn oo durbaan tunteen hooyo Soomaali soo dhawow insha Allah videogaagana dadka waan tusinayaa soo dhawow dhibaatada ku haysan waan ka hadlahayaa insha Allah bidmillaahi kariim gadaal markii aan arrimahan dhameeyaan kaaga hadlayaa hooyo Soomaali dhibaatada haysata marka maxay ahaayeen Soomaaliyay dalkeeni ceel buu ku dhacayaa dadkeeni shacabkeeni Soomaaliyeedna waxay noqdeen dad iska rabaayad iska noqday oo sidii intii 30 sano loo dilahayay aana kala jeclayn oo iska jiifjiifa ma aqaan waxba ka khaldan ee aanan maxay ahaayeen kacdoon lahayn oo aan dhibaatada haysata ka hadlaynin oo xasuuq lagu hayo ka hadlaynin oo boobka lagu hayo ka hadlaynin oo dalkeeni la iibsanayo oo beec yahay forseel yahay ka hadlaynin ka banaan bixaynin marka Soomaali waxa ku dhacday inkaar baa ku soo habsatay Soomaaliya waxaan idin sheegayaa ninkan magacayla wadaagta maxamed farmaajo annaga wada dhalanay anaana idin ka badiya waan idin kala hadlahay sanadkii barka uu dawladda maxay ahayd aad leedahay dawlad buu noo yahay anigu dawladu ma arko waxaan u arkaa dawlad gudoomiye goboleed baan u arkaa Banaadir State waxaan idin sheegayaa Soomaaliyay
horta sanad iyo bar baan aniga idinla hadlahayay waxaan kala hadlahayayna way soo baxeen dalkeena inuu foorseel yahay ninkan iyo seedigiisna ay dalka usoo shaqo tageen niman jeeb soo doontay weeye dal iyo qarannimo iyo shacab Soomaaliyeed aan kala jeclayn ee soo lacag doontay ee dalkii iibsanahayo marka waxaan idin sheegayaa Soomaaliyeed shalayto waa tuu abid yimid dalkeena 3 saac muddo 3 saac in loogu siixay 4 degadood 4 degadoodna ay tahay degada Berbera iyo degadii Boosaaso iyo degadii Kismaayo iyo degadii Xamar Soomaaliya dhageysta Soomaaliya degadii ayaa hadda laga soo siixaya arinta kale oo ugu soo korodhayna waxa weeye waxaan is ognahay Djibouti inay tahay dal Soomaaliya kamid ah Djibouti inay yihiin Soomaali Djibouti inay yihiin dad walaalo aynaan nahay Djibouti iyo Soomaali inay wada dhasheen Djibouti inaysan naga ahayn dal kaleeto waxaan isla ognahay dawladda Eritrea in ay xornimadeeda qaatay 1993 waxaan isla ognahay in Djibouti ay dhulka haysato Eritrea oo ognahay in ciidamo u fadhiyaan ay ka celin jireen Ethiopiankii ninkii horeeto Tigraygaha weershihii hore laga bedelay inuu ka hor istaagnayo dawladda Qadaraha dawladii Qadarahaydna inay maxay ahayteen ay ka baxday meeshii maadaama ay dawladda Djibouti ay raacday Imaaraadka Soomaaliya dhageysto ka bacdina ciidamadii Eritreankana ay ka hayeen dawladda Ethiopia ninka prime ministerka weershihii horeeto ee Tigraygaha uu ka hor istaagnaa Soomaaliya dhageysto haddadaan marka maxamed arinta loogu yeeraan ku idin sheegaya marka kow maxamed horta degadii inuu saxiixo way official uu ku saxiixo Ethiopia dhageyso 4 degad in looga saxiixdo Asmara in looga saxiixdo kow labo Djibouti dawladda Djibouti ciidanka u jooga dalka Soomaaliya ee Amisonka ah ee fadhiya Hiiraan iyo gobolada dhexe fadhiyaan in uu Maxamed Farmaajo ka saaro si Eritrea ay ugu duusho Djibouti ay u qabsato uu u saxiixo Maxamed Farmaajo inuu ka saaro Djibouti gobolada dhexe ay fadhiyaan ciidankooda ay fadhiyaan inuu ka saaro ayaa loogu yeeray ka bacdina Eritrea dagaal ku qaato Djibouti ay dhulka Djibouti qabsato Soomaaliya ay dhageysta waxa weeye marka annagu Djibouti waa dad walaaladeena annagu Djibouti waa Soomaali annagu Djibouti marna raalowga ma noqonayna cadow inaan lugaha u qabanno annagu haddaan Soomaalinahay marna ka yeelimayno Djibouti cadowgooda inaan wax ku darsano annagu marna ka yeelimayno in cadowgooda Djibouti aan lugaha u qabanno aan Djibouti fogeyno Soomaaliya ay dhageysta marka waxa weeye marka Maxamed Farmaajo wuu soo saxiixay wuxuuna soo saxiixay dawladda Djibouti ciidankeeda inay kala baxdo gobolada dhexe ay Djibouti ku noqdaan si uu international community iyo intay qaramada midoobay iyo caalamka ugu sheego uu yiraahdo Djibouti ha naga baxdo Soomaaliya dhageysto Djiboutina ay markaa dagaal ku soo qaato Tigray si Djibouti u qabsato waxaan idin sheegaynaa markaani annagu Djibouti naga ma baxayso Djibouti hadday baxayso annagu Amazon oo dhan Ethiopia iyo Kenya way naga baxayaan Ethiopia Kenya iyo caalamka dalka way nooga baxayaan waa kow labo Maxamed Farmaajo hadduu soo saxiixo uu gacantiisa ku rabo inuu dalka Djibouti Eritrea ku qabsato Soomaalida banaadir istee jooga waxaan idinka codsanayaa shacbiyada meel kasta ay joogaan arrintan waa inaad ka banaan baxdaan shacbiyada banaadirna waxaan idin sheegayaa Khayre iyo Maxamed Farmaajo dhagax ina uga saartaan dalka dhagax ina uga saartaan weeye ku banaan baxdaan waxa weeye annagu Djibouti waa walaaladeen Djibouti waa dal Soomaaliya kamid ah Soomaaliya dhageysta Djibouti waa dal Soomaaliya kamid ah Djibouti waa dal annaga magac nala wadaago Djibouti waa dal aan isku dhiignahay Djibouti waa dad aan wada dhalanay Djibouti hadduu intuu Eritrea u soo saxiixo inay dagaal ku qaado uu Maxamed Farmaajo banaadir isteed idin soo fariisto shacbiyada banaadir isteed waxaan idinka codsanayaa labada nin canda wadaagta dhagax ina uga saartaan weeye annagu Djibouti waan u hiilinaynaa Djibouti Eritrea hadday ku soo duusho annagu Eritrea wanaag nama dhex yaallo heshiis nama dhex yaallo waan u hiilinaynaa waana garab istaagaynaa askarteennana waxaan idinka codsanayaa Djibouti garab inaa siisaan Djibouti inaa garab siisaan Djibouti dalkeena kama bixayso hadday ka baxaysan annagu waa Amazon international community Ethiopia Eritrea iyo Ghanaiska iyo Nigerianka iyo Kenyaatiga ha naga baxaan
hanaga baxaan jabuuti keligeed ma baxayso arrintaas ayuu maxamed u baxay dekadihii inuu u soo sixiyo official ninka la leeyahay howshii la galo in ninka la leeyahay maxay ahayteen abi iyo imaaraadka inay u howlgeliyaan 4 tegadood uu u soo sixiixo ciidanka u jooga jabuuti ee gobolada dhexe jooga hiiraan jooga jabuutina in laga saaro kabacdina ay ku duusho Eritrea jabuuti say u qabsato waxaan idiin sheegay waa soo baxeen marka waxaan idiin sheegay waa soo baxeen maxamed tuug weeye caad qaata weeye waa lacag waa soo shaqo tagay Soomaaliyeed dhulkiinina uu iibsanayaa walaalihii jabuutina waa ka cadow maanta u gacmaha u qabanaya cadow maanta uu kula heshiiyay inuu ugu saxiixo dalka jabuuti in la qabsado ciidanka jabuuti ka jooga magaalada Soomaaliyana in laga saaro uu international community qaramada midoobay ku dacwoodo in jabuuti laga saaro Soomaaliya dhigaysta Soomaaliya marka maxamed waa nin tuuga waa nin khaayina waa nin aan aqoonin waxa la isku yahay waa nin aan Soomaalinimo u joogin waa nin aan qaranimo u joogin waa nin khaayina waa nin raba in dalkeeni Soomaaliyeed Ethiopia uu hoos dhigo si fiican dhigayso waa nin raba dalkeeni Soomaaliya inuu Ethiopia hoos dhigo Ethiopiana laga maamulo waxaan leeyahay shacbiyada banaadir isteed degan waxaan leeyahay uqaasha banaadir isteed degan waxaan leeyahay kaaba qabiilada banaadir isteed degan waxaan leeyahay malaaqiyada banaadir isteed degan haddii ciidamadaas laga saaro jabuuti dalka looga saaro hadday Eritrea dagaal ku qaato waxaan idinka codsanayaa dhagax uga saara maxamed iyo seedigi maxamed iyo ninka magaca dheer ee candha wadaaga khayr duufle dhagax uga saara dalka barkee wadani maahan niman Soomaaliyeed ma ahan waa niman lagu shaqaysto waa niman lacag la siisto waa niman calooshoodu shaqaystayaala niman qaran maaha waxaan sheegahayeen way soo baxeen Soomaaliyeed waxaan sanadkii idinkaga digayna way soo baxeen nin wadani maaha maxamed waa tuug farihiisa kala haday waxaan idin sheegahayaa ilaahay aabahay ha u naxariisto aabahay ugu noolaa markuu noolaa maxamed baan idinkaga sheeganaya historigiisa inuu tuug yahay caloosh shaqaysta yahay khaa'in yahay dalka rabo inuu iibsado birina dalka markuu iibsado cadow idinku wareejino uu idinka tagayaa Soomaaliya ay meel allaale meesha joogtaan maxamed uga banaanbaxa iska saara labada nin ee candha wadaagta iska saara waxaan idin sheegayaa marka maxamed anuu ila dhashay qofka markuu kula dhashana waa taqaanaa waxa ka suurtoobay waxaan ka suurtoobin maxamed calooshtu shaqaysta weeye maxamed kelmad xalaala ma yaqaano maxamed waxa meermeerinaya kutubka beenta uu ku dhaartay uu isaga kiindhiga inuu wadani yahay maxamed wadani ma aha maxamed qaran ma aha maxamed Soomaali ma aha maxamed calooshtu shaqaysta weeye asaga iyo seedigiis khayr duufle asaga iyo seedigiis iyo khayr duufle waxaan idin sheegayaa marka Soomaaliyeed maxamed farmaajo shalayta markaad wasaaradda arrimaha dibadda u shaqeynaysa oo wasaaradda arrimaha ka tagto politika asaan isku dhibtay lacagtii aad maaliyadda ka dhacday oo ku suubsatay 1991 1992 1993 gurigii aad ku iibsatay Toronto xageed ka keentay bal Soomaaliya tuugniidiyaan sheegaya safaaradda ninkan lacag buu ka dhacay lacagtii Toronto guriga iibsaday 1991 1992 maxamed farmaajo tuug weeye xagee ka keentay lacagtii aad Toronto guriga iibsatay lacagtii naagtaadu ceyrta ku qaadanaysay guriga ay taganeed xageed ka keentay maxamed farmaajo waa nin faroora waa nin ku dhaqma faroor tuug dharka dhigtay weeye ko talabaadan idin sheegaya guryahan uu Kenya ku leeyahay labada guri ee midna degan yahay walaaladay xakuuka keen gurigan Buffalo ka iibsaday ee middle glasski uu degan yahay waa lacagtii uu ka soo boobay prime ministerka maxamed farmaajo tuug faroori weeye dharka dhigtay tuug ah weey maxamed waan idin sheegayaa diin ma yaqaano ilaahay ma yaqaano dal shaqo kuma lahan wadaninimo shaqo kuma lahan qaranimo shaqo kuma lahan maxamed waa tuug farihiisa kala xadahaya khaayina la haysto fulay ah jaajuusa sanad dhan buu u fadhiyay Nairobi in dalkeena Soomaaliyeed uu Ethiopia hoos dhigo berri waxaan idin soo dirayaa maxay hayteen nin sarkaal ah oo Sacuudiyaan ah oo dhahaya oo Mareykanka joogo oo dhahaya dalka Soomaaliya isma maamuli karaan Ethiopia la hoos dhigo
dalka Soomaaliya isma maamuli karaan Ethiopia ha loo dhiibo Ethiopia ha lagu daro waan idin keenayaa asoo qudbaynayo nin sarkaala oo Mareykanka jooga oo ku dhahaya dalka Soomaaliya waa in la hoosgeeyaa Ethiopia waa inay Ethiopia ku darsoontaa waa inay Ethiopia maamushaa arrintaasna waxaa fulinaya Maxamed Farmaajo markii anagu Eritrea waa dawlad yar waxba haysanin gaajo ah ee cunaqabateynta hadda laga qaadahayo Ethiopia cunaqabateynta hadda ka qaaday Ethiopia dhulkay ka qabsatay u celinaysa maxay taan hal degadood leh waxa weeye maxaan ka helaynaa anagu Eritrea maxaa naga dhaxeeya waa minis Ethiopia ayaan ka mid nahay Ethiopia waa inay maadaama ay leeshiisay waa inaan leeshiina anagana Eritrea marka Ethiopia ayaana maamusha Ethiopian hoos aalna birina calankaaga la bedelayaa birina calankaagi baa laga tuuraya shanta xidig waxa lagu keenaya calan Ethiopiana galinka lixaad baan qone maxaad ka talinay marka Soomaaliya waxa lagu tayay in baadiyadooda ku dhigatid waxa lagu taliyay waxa lagu dayay in ciidankoodii Ethiopia dalkaaga soo fariistaan waxa lagu taliyay shacabkaaga in Ethiopia xasuuqo waxa lagu taliyay baadiyadoodii iyo taariikhdoodii in lagu xuso dalka Soomaaliya waxa lagu tayay in calankoodii Ethiopia dalka laga saaro ma garatay adiga calanka leeda Ethiopia ka yeer abi ha ka yeer ina surtid sharti xitigooda calanka ha ka yeer Ethiopia ina surtid ha ka yeero Ethiopia marka waxa idin sheegaya Soomaaliyeed Ethiopia waa ujeedadeeda ay damacsan tahay inaan Ethiopia ku darsoono Ethiopia waxaan nahay dad kala diine waxaan nahay Ethiopia dad kala jinsiyada Ethiopia waxaan nahay dad kala luqada Ethiopia waxaan nahay dad kala dhaqana Ethiopia la yiraahdaa intaas oo qowmiyadood waay annaguna hal qowmiyadood oo waxaan nahay Soomaaliya la yiraahdo dalka Soomaaliya ee hal diin leh ee hal luqad leh ee hal maxay dhaqan leh ee annaga Soomaali ah ayaa nahay Ethiopia annagu nama soo daakhili karto Ethiopia waxaan ka xigaynaa dagaal international community hadday Ethiopia ay nagu tala galaan Ethiopia calankooda inay noo saaraan Ethiopia gumeysigooda inay nageeyaan annagu dagaal baan ka xignaa Soomaaliya hal haduusan ka soo haray wayna dagaalantaan wayna is xoreysaan wayna Ethiopia iska xoreysaan Ethiopia wayna iska xoreysaan amiso wayna iska saartaan maxay hayteen Ethiopia iyo Kenya iyo maxay tahay Uganda kulli hanaga baxaan annagu waxaan nahay dal Soomaaliya la yiraahdo East Africa annagu qaarad baan leenahay annaga maamulkeen annaga haysanayna annaga ismaamulayna uma baahnin tuug soo shaqo tagay baasaboor ajnabi wato tuug soo dilaysateen ee annaga maqaarka nala wadaago qaa'in wadan ah la hayste doqon ah ee meel u socday meel ka socdana aqoonin ee calooshiisa u shaqaysta ee lacag doona annagu dooni mayno Soomaali haddaan nahay dooni mayno annagu calankaasaan leenahay maamul baan rabnaa degaan baynu leenahay luqad baan ku wada hadalnaa diin baynu leenahay hal dhaqan baynu leenahay Soomaaliyay meel uga soo wada jeesta gruubkan canda wadaagta ee magaala madaxda fadhida waa inaad ku banaan baxdaan shalayto markuu yimid Brussels ninkii shacabkii xasuuqay ninka wadaniga ah Ethiopia u dhiibay ninkii dalkaaga Ethiopia ku wareejiyay tikadaaga u saxiixay ninkii adiga ku xasuuqay intaad ku banaan bixi lahaydeen baad durbaanka u tunteen intaad ku banaan bixi lahaydeen baad u sacbinayseen dareenkii ka doomahaya asaa ka doomo qaa'in wadanaha dareenkii gadoomahayay uu Soomaalida maxay hayteen ugu maahmaahayay asaga ka doomay asaa nin waalan dhar qaba ah asaana aqoon meel u socdo iyo meel ka socdo ninka waalan oo dharka qaba oo iska socdo oo wuxuu ku hadlaysan jir uu sheegayo asaga kamida asaa nin waalan dhar qaba oo meel u socdo iyo meel ka socdo aan aqoonin dadka waalan uu sheegayo kow asaga kamida ee dareenka ku waashay markuu gadoomay dareenka markuu gadoomay ku waashay Soomaaliya waxaan idin sheegayaa marka Maxamed Farmaajo tuug weey Maxamed Farmaajo qaa'in weey Maxamed Farmaajo doqon weey Maxamed Farmaajo qaa'in wadan weey Maxamed Farmaajo la haysta weey Maxamed Farmaajo fulay weey Maxamed Farmaajo waa loo soo dilay gumeysi baa noo soo dileeyay waa inuu amarkooda sameeyaa waa inuu sanadku jaajuuska ku ahaa Nairobi wixii la yiraahdo sameey waa inuu saxiixaa mi garanaysaa waa inuu saxiixaa waa inaad arintaas ka kacdaan
arrintaa waa inaad ka hadashaan arrintaa waa inaad ka dhidhiisaan annagu Eritrea waxba isumani Eritrea waxba isumani annagu Jabuuti waa dad annaga Soomaali nala shanta xidigay ka mid tahay Jabuuti waa Soomaali Jabuuti cadawgooda ma raaci karno cadawgooda waa cadawgooda Jabuuti waa cadawgeena Soomaaliya waxaan idin sheegayaa ka kaca anagu waxaan leeyahay shacabka Banaadir State ku nool waxaan idin leeyahay nimankaas magaalada caasimadda dhagax uga saara iska saara biri Jabuuti markii la qabsaday adiga waa lagu haystaa Jabuuti adiga waxa ma kala duwadin dameer iyo labadiisa dhagood baatiin Soomaali waa Soomaali ahay marka aniga shacabka Jabuutiyo shalay waad ila yaabaneedeene waxaad idhayseen maxay wiilka ka rabtaa huuna maxay ka rabtaa wiilka huuna Maxamed waa nin fiican hadda ila arka wuxuu yahay marka hadda ila arka Soomaali ay wuxuu yahay waxaan sanadka idin kala hadlahay inuu waxba ahayn ila arka inuu gumaysi dalka gacanta u galinayo inuu dalkii iibsanaya sidii seedigi inuu soo shaqo tagay ila arka Soomaaliya ila arka cadow Ethiopia inuu hoos dhigo in calanka Ethiopia lagu saaro Ethiopia ku taliso oo gelinka lixaad laga dhigo ayuu Maxamed diyaar u yahay inuu Ethiopia uu qabaan u noqdo diyaar u yahay inuu la haysto Ethiopia u noqdo diyaar u yahay inuu dalka Soomaaliya iibsado diyaar u yahay inuu dalka Ethiopia ku wareejiyo diyaar u yahay Soomaaliya warka sheego waa soo baxaan Jabuuti hadii la qabsado adigana waa lagu haystaa markay Jabuuti waa dawlad madax bannaan daas way uu rabaa Tigray inuu qabsado waa la iskala qaybiyay Soomaaliya waa la iskala qaybiyay Tigray Jabuuti ay qabsadeen annagana Ethiopia aan haysata marka maxaa Soomaalinimadeeni iyo xorriyadeeni maxaan u dhalaysanay maxaan calanka ugu dhimanay maxaan gumaysiga isaga kicinay maxaan maamul u samaysanay maxaan xorriyadeeni aan aan u gaarnay ileen calankaad arkaysaan ileen dalkaad arkaysaan rag baa u soo dhiig baxay rag baa u dhintay rag baa godka u galay rag baa taariikh u lahaa rag baa xorriyadina siiyay rag baa cadawga naga dulkiciyay rag baa noo halgamay aawaya marka idinka maxaa tihiin marka Soomaaliya maxaa tihiin Jabuuti hadday Eritrea qabsato adigana Ethiopia ku qabsanaysa Jabuuti hadday Eritrea qabsato adiguna Ethiopia ku qabsanaysa maxaa tihiin marka Soomaaliya maxaa tihiin laakiin ilaahay ma oranin Eritrea waxa la yiri labadii xaq ku heshiisaa waxa la yiri labadii xaq darro ku heshiisaa baa yiri xaq bay ku culuubaan ilaahay ma oranin Eritrea iyo waxaad arki doontaan Ethiopia isku baaba'ay ilaahay ma oranin mana dhacayso Eritrea inay qabsato Jabuuti mana dhacayso Soomaaliya inay qabsato maxay ahayd Ethiopia ilaahay ma oranin may garatay Soomaaliya ka kaca Soomaaliya tuugaan ila dhashay dhareerka weyn loo daqonka iska saara iyo seedigi Soomaaliya iska saara nimankan tuugada iska saara khayr af wuxuu ku yiri abi annaga iyo Oromo iyo murursada waa wada dhalanay annaga iyo murursada waa wada dhalanay khayr af wuxuu ku yiri Oromo waa murursada waxaan idin leeyahay Soomaaliya waxaan idin leeyahay ka kaca hurdada anu waa idin la hadlaay ka kaca hurdada Jabuuti cadow hadduu gacanta u galo adigana cadow aad gacanta u geli walaalka haddii adiga lagu dilo adigana waa la idili doqon ha noqonine ka kaca Soomaaliya raggan jawaasiinta ee soo shaqo tagay ee shacabkaaga xamar xasuuq haya ee dhaqaalahaagii intuu khayr qaado uu ururiyo dhaqaalihii dekadiya ka soo qaato uu dad kala siinahayo calashaan uu isaga dhisahayo shacabkii Banaadir oo baahan oo gaajahaysa ayuu weersho u geynaya dhaqaalihii dekada uu ka helay maxay hayteen iyo badda dhaqaalihii dekada iyo badda shacabkii Banaadir State oo gaajeysan oo baahi haysa ayuu wuxuu geynayaa maxay ta Puntland maxay kaaga baahan tahay Puntland dhaqaalay haysata Puntland dekad bay leedahay Puntland cashuur bay iska urursa Puntland kala dambeyn bay haysata Puntland nolol bay haysata Puntland dhaqaale kaaga ma baahna dhaqaalaha uu geynaya Puntland shacbiyada Soomaaliyeed baa u baahan shacbiyada baahan xamar joogta shacbiyada Banaadir State baa iska leh xaqoodii weeye dhaqaalahoodii weeye cashuurtoodii weeye Soomaaliya dhageysta meesha in kala hadlay fahma markii anigu Banaadir waa inaan u hadlaa markii Banaadir anaa ku dhashay
it is me anaa ku dhashay xudunteedan ku tuugantahay waa inaan runta ka hadlaa waa inaan shacbiyadda banaadir aan u hadlaa waa inaan shacbiyadda banaadir u hadlaa xaqoodana waa inaan xaqoodana siiyaa xaqoodana waa inaan ka hadlaa xaq baa iga